magacaygu waa Cabdisalaan Aadan Ciyow run ahaantii saakay salaada subxeed markii la tukaday ayaan u soo dareernay aniga oo kamid ah odayaasha ama dhalinyarada degmada Doolo Ado una soo baxay si xurriyad ah codkayga oo buuxa in aan ku doorto cidda allaale ciddii aan aniga rabo rabitaankayga oo aan caburis lahayn ayaan si waafi ah ugu doortay saakay salaada subxeed markaan tukaday ayaan u soo imaaday goobta zero soosti qabalay waliba qaybteeda koobaad xilligii salaada subxeed oo aan imaaday waxaan ugu imaaday ugu yaraan 4 leyn oo kale oo hortay buuxdo leynkii asaga ahaa ayaan gadaal ka qabsaday alxamdulillah waqtigan ayaa la soo gaaray in aan codkaygii dhiibta si waafi ah nabadgelyo leh waxba buuq aan lahayn cid iswaardiyeyni iyo cid dhibaato ah ama wax isku caburini ama qof doora ama inta ka leexa kule aysan jirin alxamdulillah waxaan boorinayaa in shacabka isku toosan nabadgelyada jecel nidaamkan iyo maamulkooda isu waafaqsan alxamdulillah xilli walba waa waxaan ilaahay mahadiis ah oo aan xilli walba la helaynin aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ASR TV oo aan daalaynin u taagan iyada laftinkeeda in ay micnaha codkanagi si waafi ah nooga qaado aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raxiim magacaygu waa Garaad Cabdi Aadan waxaana ka mid ahay shacabka degmada Doolo Ado gobolka Liibaan gaar ahaan degmada Doolo Ado goobtan waa goob ka mid ah goobaha ay doorashada ay codbixinta ka socoto marka si wanaagsan bay bulshada uga qayb qaadanayaan codbixintana way socotaa ilaa hadda marka si diiran wax dhibaato ah ma jirto codbixintana si wanaagsan bay u socotaa waana mahadsantiin